بسم الله الرحمن الرحيم. مركله وحن سولوينيا سومالان كسولوينيا تلفزيونada كسولوينيا عمر cabdille عبدي hore way isku baranay horena waa u noqonay Cumar cabdille Shooli Cumar cabdille Shooli madalidii hawladii waa bari Cumar markale ku soo dhawo Soomaaliland oo adigii yimi wax badan adoo ka maqan dalka iyo dadkiisaba waa isragteen oo akulanteen oo bandhig isku timaadeen bal ka waran hadda maxaad la kulantay aragtidaadii iyo Soomaaliland wallahi Abiib runtii Somaliland anoo waa aad iyo aad baa lagu soo dhaweeyay sida markaan iraahdo dawladda markaan iraahdo dadweynaha markaan iraahdo TV-yaasha qaranka TV-ga qaranka iyo TV-yaasha kale mataqaanaa keewalka oo kale si fiican baa lagu soo dhaweeyay waliba waxaan aad iyo aad waxaan maleynaa maalin ana isla qarinay dawladda aad iyo dadweynaha hadda kulle salaantii baan ku kala bedelanahay aad iyo aad baan yani ugu faraxsanahay Soomaaliland inaan imaado oon arko yani nolosha lagu nool yahay nabadgelyada iyo sida mataqaanaa waliba haddana si gaar ah waxay ii soo dhaway saaxiibkii koowaad Abdirashid Dahabshiil markaan soo gaaray marka intaas ayaan kala kulmay intaas baad ka kulantay gaar ahaan magaalada Hargeysa meesha Cumar waati guud ahaan Soomaaliya oo dhan Somaliland iyo Soomaaliya inteeda kala baa muddo badan baad ka maqlay aragtidii fikirkii hore aad ka haysatay iyo imaantinkaagi maxaa iska bedelay wallahi fikradda aan ku haystay horta ama aan haystay waxay ahayd kulli wadankaas waqti baa ugu dambeysay ilaa soo dhameeyo sano saasa marka soo dhameeyo sano isbedel badan baa dhici kara waxa weeyaan marka isbedelka dhacon la kulmay waxa kamid ahaa wadankii horta ballaartay gaar ahaan magaalada Hargeysa aan dhex joogo aad bay u ballaaratay aadna way u weynaatay waxa laga yaabaa hadda mar hataa inaad ku lunto Hargeysa wada hadii ka lunto wadada kala saad ku raadiso ay shaqata waxa kale aan intaas leeyahay maadaama aan magaaladan imidna wali runtii hal bay ama wax yar oo dhibaato kuma arag mana la kulmay marka waxaan arkayaa meesha inay tahay security nabadgelyada ay tahay mid ilaahu dadka dhan ha u sahlay inay nabadgelyo oo mataqaanaa oo lagu farxi karo ayaa meesha taala dadkii gaar ahaan waliba aan islahayn xamar ka yimid koonfur ka yimid qaar ahaan dad badan ku arkay meesha jooga oo ganacsi ku haysta qaarkood qaar ka shaqaysto qaar iska degan qaar yani lama ku sugayo marka waxaan arkayaa nabadgelyada waxaas oo dhan ku siray taas un baan horta la kulmaa maarta ama aan arkay ama aan la kulmay baan aan dhex jooga hadda mar Cumar kulay deenin fanaan weyn aad ahayd inkastoo aad u socod badnayd haddana magaalada kulay waa dhex marmartay maxaa ku cajab geliyay ama aad la yaabtay ama aad jeclaysatay oo aad aragtay waxa ay cajab geliyay magaalada runtii aniga hadda waxaan hadda ka deganahay meel gaar ah sida xero oo u dhow ayuu laakiin magaalada suuqa waa imaada waxaan arkay kale yani meelo badan oo laga qadeeyo sida hoteeladii aan ogaan jirnay ama restaurantyaashii weliba oo aada loo dhisay meelo badan oo runtii hal kulle ma koobi karo magacyadooda laakiin meelo badan oon tagay yani oo qadadii iyo cashadii iyo wixii oo dhan yani oo yani si fiican ugu soo dhaweynayo Hargeysa markii horaan imaan jirnay intaas kama furnayn hadda meel kasta waxaa ka furan restaurantyaal oo mataqaanaa soo dhaweyno international lagu dhigi karo lagu xisaabtami karo caalami oo ninkii yimaadana ama ajnabi ha noqdo ama af Soomaali ha ku hadlo ku farxayo marka wali yimaado wax fiican kala kulmayo waxa kale aan arkayaa xaruntii nafteeda Dahabshiil ayaa ku dhex taal meesha oo runtiina Dahabshiilna aad iyo aad si gaar ah lagu soo dhaweysay gaar ah waliba ma dhihi karin aan ka dhaxgalo kulay Hargeysa iyo Somaliland inteeda badan dadkii reer Muqdisho ama reer koonfurta Soomaaliya meel kasta oo ay tahay way joogaan
dahabshiil marna ma kula kulantay iyagoo xawaalad qaadanaya iyagoo ku sii socda ama iyagoo mataqaanaa oo cid ku garanaysa ama adigu aad garato maskaxda dad badan way waliba dahabshiil hadda xarunta kaliya ma laaman kale leedahay xala urtaan degannahay lamba ku taala oo kale oo ka dambaysa magaalada oo dhan lama ku leeyahay magaalada lama ku leeyahay way haddana waxaa la yaaba ma taqaan ama farxada markaad wax yar socotaba tabeelihii waxaa ka hor imaanaya dahabshiil way oo shaarka uu kala waata marka dahabshiil ma ku koobi karno halkan yani amaantiisa iyo sheekadiisa iyo waxtarkiisa laakiin waxaad leedahay Soomaalidu waxay tiraa isha macallin dahabshiil waxay ka qaadatay waddanka qayb oo loo baahnaana maanta haddaysan jirin lahayn shirkadaha noocaana waddanka dadku waxay ahaan lahayd dhibaatin laakiin maanta hadda nin walaala ama qaraabatin ama saaxiibtin ama mid aad gashay oo ku dhahaya halkaa wax ka qaado marka tan online weliba online oo aan habsan lahayn oo ma isa Allah isa qara la ku sii ugu kala baxo waa arkay waata dahabshiil تركوب مركان كاسيو أنا واحد كل أتني لندن وين waxay ku lahaayeen xarun weyn oo wajabal meel ay ku taale si fiican runtii meeshaas ayaa hadda abaabulkeeda ka bilowday hadda maanta adduunyada meesha tagtid illa Minnesota America dhulkaas aan tegay waatay waa si wuxuu ku leeyahay bank waatay marka waxay ka mid tahay horumarkii dheeraadka ay ka mid Cumar maxaa haddii aad aragtay gaadiidkii dadku ay raacayeen haddii aad aragtay wadooyinkii ay marayeen haddii aad aragtay guryihii ay dhisanayeen maxaad is leedahay toosin bay u yar baahnaayeen ama waxaas in wax laga sii qabtay weliba u baahnay argeeso dhib kale ma qabto nabadgelyo horta waxa uu qaalisan nabadgelyo waata ali nabadgelyo dadka intay wada keentay nabadgelyo uu qaalisan way argeeso hadda waxay u baahan tahay bas oo hadda ay u baahan tahay wadooyinkooda toosiya bas waata inta kale argeeso NF weeyaan waata dadkina runtii badi dad inta ka shaqeysta gudaha dawladda ku shaqeeya dad ganacsata ah dad dibadda ka yimaado iskaga yimaado mataqaana ama reerahooda degan yahay ama u yimaado mataqaana Soomaaliya maanta xagee la tegi karaa inta yani dadka yimaadeen kuwa badan ma arkaa marka wallahi hadalku waxa fiican in waxtarkiisa laga sheekeeyo waxtarka hargeysa maanta wax dhamaanaya ma haddaan ka wada hadalno maanta waata laakiin waxay haystaan dadkan nabadgelyo adduunyada hurdada lagu sheegayo nasashada gaariga fiican la wato waxay ku timaadaan nabadgelyo adiya taas bay wax loo bilaabaa taasi ka bilaabaa haddaysan nabadgelyo jirin gaari fiican ma ka haysan kartid lacag dadka ma ku haysan kartid ma naqan kartid maanta qaana adiga iyo qof aad isjeceshin ama xaaskaaga jidka isla mari kartaan because waxa weeyaan nabadgelyada waxaan asugaya ama hagaajina Cumar intii aad dariiqada waaweyn Hargeysa aad dhex socotay qofna bimatal ama 20 sano ama 30 sano ama ka badan ay kugu dambeysay ana waa Cumar Shooli ma ku yiri oo aadna ma garatay oo qana meesoo helowday aniga dadka oo dhan horta ma wada garan karo way adiga dad badan oo ku salaamaya dira aadan ka siin wax badan mar haddaad yani tahay nin mataqaan markaa tahay wariye markaa tahay heesaa markaa tahay sport markaa tahay dhakhtar markaa tahay teacher dadkoo dhan ma wada garan kartid waata laakiin adigoo ku garanay waxaa laga yaabaa dad tira kooban inaad haysato حاجة حسن سلسل قليل وي والله لا أهلا وسهلا وأنا سلمت أنا تقبل رسالة لكن ما قرني أسيق وحكاكتي شاشة وكابرتي ما قاعد يوجه كل واحد لكن هذه نينك ما قاعد يسمع لي كرت لكن السلام وقرن كرتا لكن ما لنا إنه ضغطين إنه يحن نقول له خصوصنا نقوله نعسوي إن السيجارة سكوز نين سكول دكتين سليمان برخة قلوبي يعني شعلينوها وصلنا حصتين ترطي كندا أوتوا أنت هذا وعن فاعل في كنتي أوتوا مركا كم فيلمين أنت بيشو قصور الشيء واتا يمشي عم بقى كمان كقديني واتا قديني ماشي ونك فكر سوي واتا أوتوا كورتي نك أرجع زنوب جدا مركي وكيلو ما قال لكن حاجة ولو كم ده عددك كسوري وكم ده واتا كنتي حق بدن بعديه أساسا كلا يسود وياه
marka كل ملك استوى ورسول السوق ما أبا وتجي سوا فهمتي السوق ما يسا لكن رجوا اسبوع قرض معها واضح مدبا سكجرة إنه هو قرنا يقول لك هذا أظن مال ويم أنا يا أبي بساتها هنا كتبنا ماشي كاجت تجمع بعض يعني وقال لي أنا كاجر رون واضح تدفع سوجرا رجوا عجرة أن كرا قليل المال كان قليل هو الصور هذين أيوه كل شهر يعني ما تبغى إنه يعني ما كذا شكل واحد صومرتي ماشي تكون مشاكل كله ذكر سؤال ما عادية إن عمر عبدille Shooli أنتي سؤالنا شوكتي ما عصبة أو هذا حس قاضي أما هذا تنتي أما بقى ألفتي بقى والله هذا دهبشيل أيام وقتها سدح هسه بدو وقتها لكن هسه هذا أنقاذ يوم ما يجري سو مثلا أنا ألبوم كان هذا وات والله بهس دهبشيل أن أنت كوسمي وي ورنتنا هسه لبدا هسنا وحي كهرلا يعني واحترك دهبشيل ولي هاي ملك استي أمة الصومال يكون شيء وات عنده حتى أمة أجنبي وحوين بنك انترناشونال وي ملك استول لا تقول دهبشيل ويكونوا ليهم ما قال كروي لما جزيرة بدك كنت على دي كجري موجي سيشيل مثلا هذا كسر موجي لا اسمع هو لكن انت كرونا صومري لا تلياني كسر ملك استول ملك استول دنيا دهبشيل وكاغورا وات وطن كنت لي هذا كان هذا دل كستون تجي دد ميلو كنولي دهبشيل كم غير ولي ما داول ما نعرف وات مثل كلام محلية دهبشيل الله أبداي دهبشيل الله داير ميلو كل شيء دريال عاوي ما أفديه دوني دور من بلغة أكسونيا دهبشيل داخسي ويا وإن لوجوديها كنا لبضان هاس محبوس من يهلكن يولي بو عن صوّد هاس اللي راهو إيد موبيل وات وهذا شغلي سأنا هايو ولي عن دوبي إيد موبيل إنه يعني صوروا دهبشيل وات تاسنا وصورة كل وحى مرينا وحي وطلع حاجة عبدالرشيد دوبي ده يعني كان قاون أحمد عبد الرحمن مين كان دركب وات وحي أنا أحمد هلا وات عمل كان قابي هذا حي ده أديكوا أبي بنا ده أنا كابو خد دورني وحن نكاس وات نكاس حالين في هذا ودياشة وات كنت السنة مرة واحدة مركا تازنا أبي وحوي أن كنتي أن هوش مانتا أن وجوجنا مانتا حوي أنا إنه هساس متخنا ضدك تسنو ضدك أن جالسينه يوحو دهبشيل قبتي يوحو مدو هايو وات إن ماشي ناس يعني كان ضدكو أما كي لقيس عن نقدو أما مو غلط وات سيدا سوي إيده موبل ما قيس لي هذا إيد ذهب هاي إيد ذهب كسوعو يعني مفروضين يا ضدك الساد إن لقوش بكرو إن يعني لو استعمالك ما غلهان يوم تقنا كنتي أديك فربضن ودهبشيل يعني وهاي وهذا خصوص يا أما خصوص كلية أديك ده هرجري موبل التلفون هذا هاي إيد ذهب واضح إن بل هذا دور يرسل عمر عبدille وإنه شيء وكان صوبنا جاي لبه صوت أو دهبشيل كمبني أي قالوا ليه بل هذا مد كمدا عن سوق هذا عمر أو يسوي موسيقى ستومي أو سيد ولا سنة أوه السنة أوه السنة Dahabshiil Allah hadayo danyar meelay ku nooshahay daryeel caawimaad u fidiyaa danyar